Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada kanaalka Wadani Show. Rabadaan wanaagsan ayaa idin leeyahay. Ilaahay kuwii rabadaanta ka faa'iideysta khayrkiisana hela Ilaahayna ka dhigo. Waxaan idin wadaa cashar idinka sameeyay Facebooka profile-kaaga sidaa u qarsan lahayd u maamuli lahayd. Wax kasta private uga dhigan lahayd sida footooyinkaaga, sawiradaada, friendskaaga, wax walba sidaad private uga dhigan lahayd. Marka ila socdo saaxiibayaal, waa kooban yahay casharkeena caawi. Aan bilowno. Marka hore Facebook aan galayaa. Facebook markaas u galo settingska u tago Facebook waxaan lahayaa privacy-ga. Waxaan taabanayaa koonaha saddexda falaarood oo jiifta ah. Waan ku dhufanayaa. Kadib waxaan tegayaa meesha ay ku qoran tahay settings and privacy. Kadib waxaan kasii dooranayaa settings. Ila socdo saaxiibayaal. Fadlan casharka haddii uu ku cajabiyo like noo saar, commentigana qaybta faaladana commentiga noogu reeb si aan marka u maamulo Facebookayga oo privacy-ga aan wax kasta aan private uga dhigto. Waxaan tegayaa privacy settings meesha ku qoran tahay. Waa ujeedaan baan malaynayaa wataas. Halkaan markaan ku dhufto wax kasta halkaan ka maamuli karaa. Marka haddii aad postiyadaada rabtid, postiyada soo dhigi doontid, haddii aad rabtid inaad cid arkin, halkaas ku dhufanaysaa. Halkaan markaan ku dhufatid waxaa meesha public ay ku qoran tahay yaa waxaa ka dhiganaysaa barta ay public ku qoran tahay. Bartaan iga raalaha saaxiib hargabsanahay saaxiibayaal. Barta ugu sareysa ay ku qoran tahay public meesha ah yaa waxaa ka dhiganaysaa haddaad rabtid friendskaaga kaliya inay arkaan, haddaad rabtid saaxiibadaada qaar haddaad rabtid inaad ka qarisid halkaas ku dhufanaysaa. Saaxiibadii aad rabtid inaad ka qarisid baa marka soo dooranaysaa. Haddii aad rabto inaad kaligaa ka dhigatid oo kaligaa aragtid, bartaas only me ku qoran tahay baad taabanaysaa. Haddii aad saaxiibo gaar u furaysid oo saaxiibo gaar rabtay inay arkaan, bartaas ku dhufanaysaa. Kadibna search baad samaynaysaa, saaxiibadaada ku soo daraysaa halkaas. Kaas waa postiga. Waxaanu u tegaynaa ka noqo halkaas. Waxaasoo dhan waxa waaye waa qaabka u qarsan lahayd. Highlightska aad samaysid oo sawirada highlightka ku samaysid haddaad rabtid inaad qarisid, barta ay ku qoran tahay who can see your highlights baa ku dhufanaysaa. Hoos u jeedaanin waxa waaye halkaan waa who can send you friend request. Yaa kuu soo diri kara macnaha codsi saaxiibtinimo. Halkaas qof kasta macnaha waxaa ka dhigi doonta haddaad doonto waxaa ka dhigi kartaa shakhsiyaad gaar ah inay ku soo codsan karaan inuu friend request ku soo diri karaan. Halkaan hoose waxa uga jeedaanin who can see your friends list. Saaxiibada kuugu jira Facebooka liiska saaxiibadaada yaa rabta inay arkaan. Haddaad rabto inaad ay kuu furnaadaan in adiga hadda ka soo qaadin kuu furan yihiin, waa public ay kuu yihiin. Haddaad rabto inaad kaligaa ka dhigato marka only me private ka dhigatid oo qarsatid, waxaa ku dhufanaysaa barta hoose ay ku qoran tahay only me. Halkaas ku dhufanaysaa. Waa ka noqonaysaa saas macnaha ay kugu qarsoon yihiin. Haddaad rabto in aan email-kaaga la arkin, halkaas ku dhufanaysaa saaxiibayaal. haddaad rabto emailkaaga inuu qof kasta arko, everyone baa dooranaysaa. Haddii aad rabto inaad kaligaa aragtid oo privacy macnaha aan qofna emailkaaga ogaanin, only me baa ka dhiganaysaa. Ila socdo saaxiibayaal. wax kasta saas u qarsan kartaa. Halkan telephone number-kaaga ka qarinaysaa. Telephone number haddii uu Facebook kuugu jiro, only me baa ka dhiganaysaa. Haddaad rabtidna public buu ku ahaanayaa, everyone inuu arko waa ogolaan kartaa. sidaas u wada qarin kartaa. Storieska macnaha yaa arki karaa halkan soo ma jeedaan. Who can see your stories. Ma public baa u rabtaa, ma custom baa u rabtaa, ma friendskaaga inay arkaan baa rabtaa. Adiga yaqaan. Haddaad rabto custom baa ka dhigan kartaa, haddaad rabto friends baa ka dhigan kartaa. Qof kasta waxa waaye xorriyad buu leeyahay. Inuu soo noqono marka profile-ka si aan sawiradayda u maamusho. Waxaan ku dhufanay halkaa. Waxaan lahay manage your profile.
manage your profile markaa ku dhufatid about you baa kuusoo baxaysa. haddaa rabto meesha ka shaqeyso inaan la ogaan bartaas waxaa lahay work meesha ku qoran tahay mid kasta calaamad ayuu horta ku leeyahay. waa ku dhufanaysaa waxaa kugu jira ku dhufanaysaa kadib waxaa leedahay share with friends optional way kan yaa la socdo wax oo dhan waxaadan qarsan karin ma jirto. haddaa rabto meesha aad joogto inaan cid ogaan iyadana waa qarsan kartaa. sidoo kaleeto ila socdo saaxiibayaal telefoonadaada waa qarsan kartaa sidoo kaleeto waa tiin xagga kusoo aragna horay. taas waa taas soo ma jeedaan wax oo dhan. halkan do you want to search engine outside of Facebook sawiradaada ma rabtaa macnaa in Facebook macnaa profilekaaga laga arko markaa qofku ku search karayo. halkaas waa taas yes baa aniga yes bay tahay no baa ka dhigan kadhaa. taas waa taas halkaan saaxiiba halkaan ciddaa doontaa ka block garayn kadhaa. public postiska waa iska xiri kartaa. mala socotaan saaxiibayaal taas waa taas. sawiradaada sidoo kaleeto waad xiran kartaa. sawiradaada waxay ka xiranaysaa marka waxaad tegaysaa footooyinkaaga profilekaaga ku dhufanaysaa kadib waxaad ku dhufanaysaa photos baa ku dhufanaysaa. photos markaa ku dhufatid waxaad sameynaysaa albums baad tegaysaa. album kasta waa xiran kartaa. album kasta goonidiisa waa xiran kartaa. sidaa ujeedaan meeshaan waxaa ku qoran barta ugu sareysa halkaas wuxuu yahay aniga change your audience each who can this album waad xiran kartaa meel walba. ma fahanteen saaxiibayaal waxoo dhan waxaa laga maamulaa marka settingskana laga maamulaa waxoo dhan saaxiibayaal. wax kasta waxaa kasoo xiran kartaa halkaas settingskaaga wax kasta kasoo xiran kartaa. halkaas oo kusii dhufanaysaa settings meesha ku qoran tahay adigaa maamuli karaya. personal informationkaaga maamuli kartaa. paymentkaaga maamuli kartaa haddii ay kugu xiran yihiin accounno. privacygaaga maamuli karaysaa. privacygaaga halkaasaa ka maamuleysaa. way la socotaan baan malinayaa saaxiibayaal. waxaasoo dhan waxa waaye waa khaas baa ka dhigan kartaa. waa mahadsantihiin saaxiibayaal. fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe tahay ilaawan. haddii aa hore nolo joogto ku mahadsan tahay. muuqaalka haddii aa ka heshay ama wax bartooda aa ka faa'iiday waxaad sameynaysaa faalada hoose inoo ku reeb like-ta inoo saara. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.